بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نما أحد سيديد يا لباتنك بشا ديسمبر سنة كالبكون لباتن يشان أو كوبيغان سيديد بشا رجب سنة كون أفر بقول أفرتن يتضبا تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله هي برامجكي حولشدا ورarka qodobada aan idin kugu haynana waxa kamida madaxweynaha Iran oo shaaciyay in Mareykanka iyo Israa'iil ay qorsheynayaan duulaan ka dhanah wadankiisa waa kuwa dalalka muslimiinta ee ka baaqsaday in ay wax ka saxiixaan bayaan xalay ay soo saareen in ka badan 20 dal iyo urur caalami ah oo cambaareeyay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland Hamas oo lagu wado in ay dhawaan doorato hogaamiyaheeda cusub haddaba waa kuma ninka loo badinayo inuu ku guuleysto xilkaasi waan faahfaahin doonaa Netanyahu oo maanta u ababaxaya wadanka Mareykanka iyadoo lagu wado in maalinta bariyo Isniinada uu la kulmo Donald Trump warar ayaa ka soo kordhay dalalka la doonayo inay ka qayb qaataan qorshaha ciidamada lagu geeyo Mareykanka Gaza iyadoo mid ka mid ah dalalkii la filayay inay ku biiraan ciidankan dib u gurasho uu sameeyay maxay tahay sababtu waan eegi doonaa dhammaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada marka la daawadayaal si aad wala socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda Iran iyo wadamada reer galbeedka iyo Israa'iil haddaba iyadoo xiisaddu cirka ku shareeran tahay isla markaasna laga cabsi qabo dagaal dhinacyadaasi dhex mara ayaa war culus wuxuu ka soo baxay madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian waxaana uu sheegay in dalkiisu wajahayo dagaal dhan walba ah oo ay ku hayaan Mareykanka Yurub iyo Israa'iil 6 bilood kadib dagaalkii 12 maalmood socday ee Tel Aviv iyo Washington ay ku soo qaadeen Tehran isla markaasna la duqeeyay goobo kala duwan oo xarumaha nuclear-ka ah waxaana taasi sii dheer cunaqabateyn dhaqaale oo cusub oo lagu soo rogay Iran Pezeshkian ayaa xusay in dagaalkan dhanka walba ah ee lagu hayo wadankiisa uu ka adeeg yahay kii Iran ay la gashay Iraq 1980 ilaa 88 kaasi oo sababay dhimashada in ka badan 1 milyan oo qof isla markaasna reebay burbur dhaqaale oo ba'an dagaalkan waa qatar badan yahay waana ka awood badan yahay kii hore sababtoo ah xaaladdu ma cad ayuu yiri madaxweynaha oo hadalkiisa isagoo sii wata yiri waxay nagu hareereeyeen siyaabo kala duwan dhammaan dhinacyada ayay naga joogaan waxay nagu riixayaan cadaadis waxay isku dayeen inay xadidaan dhaqaalaheena nolosha siyaasadda dhaqanka iyo amniga madaxweynaha Iran oo ka hadlayay cunaqabateynta dhaqaale ee saaran dalkiisa ayaa sheegay in inkastoo laga hor istaagay iibka ganacsiga iyo wax isweydaarsiga dhinaca kalena bulshada filashadeedu ay korortay ayna tahay in ay sii wadaan dadaalkooda si loo badbaadiyo dalka 28 bishii September qaramada midoobay ayaa ku soo rogtay cunaqabateyn Iran gaar ahaan barnaamijkeeda nuclear-ka kadib markii ay fashilmeen wada hadallo muddo socday tani markii xafiiska dib ugu soo laabtay Donald Trump waxa uu waday cadaadis weyn oo Iran uu saarayo waxaana ka mid ah cunaqabateyn si loo wiiqo dhaqaalaheeda isla markaasna loo cuuriyaamiyo dakhliga saliidda ka soo galaya isagoo ka hadlayay suurtagalnimada weerar cusub oo Mareykanka ama Israa'iil ay ku qaadaan Iran madaxweyne Pezeshkian wuxuu yiri ciidamada Iran si ka xoog badan sidii hore ayay u diyaarsan yihiin wuxuuna sheegay haddii Israa'iil ama Mareykanku weerar cusub ay ku soo qaadaan dalkiisa ay wajihi doonaan jawaab ka adag tii hore waxaana uu ku booriyay dadkiisa inay muujiyaan midnimo weerar laba filaan ah oo Israa'iil ay ku qaaday 13 bishii June xarumaha ku yaala Iran ayaa sababay geerida taliyaal iyo waliba saraakiil dhanka barnaamijyada nuclear-ka ee dalkaasi Iran ayaa kaga jawaabtay gantaallo iyo diyaaradaha droniska oo ay cardaadiqaha kaga dhigtay magaalooyin iyo xarumo muhiim ah oo ku yaal gudaha Israa'iil laakiin Mareykanka ayaa ku soo biiray dagaalka waxaana uu duqeeyay
xarumo ku yaal iiraan ee barnaamijka nuclearka. iiraanna waxay kaga jawaabtay duqaymo ay la beegsatay saldhigga maraykanku uu ku leeyahay qatar. kadibna madaxweyne Donald Trump ayaa saacado gudahood ku dhawaaqay in dagaalkan xabajoojin laga gaaray. waa hagaag qodobka sarkaas aynu ku dhaafano. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu maanta wuxuu u safri doonaa waddanka Maraykanka, waxaana la filayaa 29ka bishan oo berri ah in uu la kulmo Donald Trump. haddaba intuusan bixin ayaa warar kala duwan ka soo baxeen kulamo xalay dhacay. warbixinadan ayaa lagu soo bandhigay kulankii ugu dambeeyey ee golaha siyaasadda iyo amniga Israa'iil ee fiidnimadii xalay ka hor socdaalkii ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo maantay ugu ambabaxayo Maraykanka si uu la kulmo Donald Trump. waxaana la sheegay in 3 dal ay aqbaleen codsiga Maraykanka ee ku saabsan in ciidamo caalami ah loo diro Maraykanka Gaza, sida uu sheegay wargeyska iyo diico taxaranood ee ka soo baxa Israa'iil. mid ka mid ah dalalkaasi waa Indonesia, labada kalena weli magacooda lama shaacin. laakiin wargeysku wuxuu sheegay in waddanka Azerbaijan oo horey u muujiyey in uu diyaar u yahay inuu ka qayb galo howlgalka ciidamada lagu geeriyo Maraykanka Gaza, imika uu bilaabay inuu ka cagajiido arrintaasi kadib cadaadis ka yimid Turkiga. dalal kale oo horey loo xusay suurtagalnimada inay ka qayb qaataan waxaa ka mid ah Talyaaniga, Bangladesh iyo weliba Pakistan. inkastoo Maraykanku uu ku dhawaaqay marxaladda labaad ee qorshaha xabajoojinta Gaza iyo hirgelinta qorshaha 20 qodob ka kooban ee Trump, haddana weli waxaa loo baahan yahay waqti iyo diyaargarow farsamo iyo mid ciidan, iyadoo wararkuna ay sheegayaan in la filayo qorshahaasi in lagu dhawaaqo horaanta bisha January ee fooda inagu soo haysa. mas-uul Israa'iili ah oo arrimahan la socda ayaa waxa uu sheegay in qorshaha asalka uu yahay in la balaariyo heshiisyada Ibrahim kadib dagaalka, balse hadda diiradda la saarayo wejiga labaad ee qorshahan iyo qaabka loo dhisi doono ciidanka caalamiga. mas-uulkaasi wuxuu taasi ku daray in Israa'iil aysan doonayn in lagu qasbo dalal aysan rabin inay ka qayb qaataan howlgalkaasi, taasi oo loo fasirtay Turkiga. warbixintu waxay taasi ku dartay in weli shaki badan laga qabo guusha ciidamada caalamiga ah ay ka gaari karaan arrimaha aadka muranka badan uu ka taagan yahay, gaar ahaan hubka dhigista ururka Xamaas. inkastoo ay jiraan in Maraykanka iyo Israa'iil ay muujinayaan rajada ah in lagu guulaysan karo qorshaha hubka dhigista Xamaas, waa sida dalka loo dhigay. hagaag waxaan u gudbaynaa war kale oo la xiriira dhowr wadan oo muslimiin ah oo aan ka muuqan warqad ay soo saareen in ka badan 20 dal iyo ururo, taasi oo ku aadan cabaarayn ay u jeediyeen Israa'iil aqoonsigeeda Somaliland. haddaba wadamadaasi waa kumaba waan idin soo gudbin doonaa amurtaasi. sidoo kale waxaan idin soo gudbinaynaa warbixinta la xiriirta doorashada hogaamiyaha Xamaas iyo xilliga dhacayso iyo ragga ugu cadcad xilalkaasi u tartamaya. wararkaas intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiina. marka la daawadayaal, si aad ula socoto ona hesho wararkan, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. habeennimadii xalay 21 wadan iyo 2 urur oo caalami ah ayaa waxay soo saareen bayaan ay ku cambaaraynayaan aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland. inkastoo wadamadan si gaar ah ay u soo saareen bayaano kala duwan oo arrinta la xiriirta, haddana mowqif midaysan ayay soo saareen. laakiin dhowr wadan ayaa ka maqan. haddaba aynu eegno warka amurtan la xiriira. 21kan wadan ayaa waxaa ka mid ah Urdun, Masar, Sacuudiga, Turkiga, Iiraan iyo weliba maamulka Falastiiniyiinta. waxaana ay si adag uga soo horjeesteen aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland. waxaa kaloo ka mid ahaa oo bayaankan ku saxiixan ururka iskaashiga muslimiinta ee IOC iyo weliba wadamo kale. waxaana bayaankan lagu sheegay in aqoonsiga Israa'iil uu yahay mid khatar gelinaya nabadda iyo amniga caalamka, sida bayaanka lagu xusay, kuna xadgudbaya mabaadi'da iyo sharciga caalamiga iyo axdiga qaramada midoobay. laakiin waxaa la sheegay in ay ka maqnaayeen wadamo ay ka mid yihiin Imaaraadka, Bahrain, Morocco. waxaa kaloo aan ku jirin bayaankan
wadamada Lubnaan iyo Syria inkastoo Syria ay soo saartay bayaan gaar ah oo arrintan aad uga cambaaraysay oo waliba xitaa dhanka Israa'iiliinta aad loo hadalhayay sababta Israa'iil camaaradii ugala kulmayso Syria haddana wadamadan ayaa waxaa la sheegay si gaar ah wadanka Imaaraadka Carabta iyo Bahrain iyo Morocco inay qayb ka yihiin heshiiska Ibrahim loogu yeero 2020kii Donald Trump uu ka shaqeeyay Israa'iil ay xiriirka kula samaysteen haddaba haddii aynu eegno 21kaasi wadan kuwa ay yihiin sida halkan kaga muuqata waa Jordan, Sacuudiga, Turkiga, Soomaaliya, Djibouti, Masar, Oman, Suudaan, Yemen, Ciraaq, Liibiya, Falastiin, Kuwait, Qatar, Iiraan, Comoros, Nigeria, Pakistan, ururka wadamada Islaamka, Algeria, Gambia iyo Maldives marka 21kan qaybood ayaa soo saaray bayaankaasi laakiin arinta sida weyn ilaa iyo xalay ilaa iyo saaka loo hadalhayaa waxay tahay wadamadan Morocco, Bahrain iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta oo arintan aan qayb ka noqon waxay ku soo kordha waynu arki doonaa markan waxaynu eegaynaa qodobka ugu dambeeya oo barnaamijka aynu ku eegayno doorashada hogaamiyaha ururka Hamas ayaa la filayaa in toddobaadyada soo socda ama maalmo gudahoodba ay doorato hogaamiye cusub sida ay qortay warbaahinta Sacuudiga Al-Sharq iyadoo soo xiganaysa ila u dhow hogaanka kooxda si kastaba ha ahaatee ilahaasi waxay sheegeen in wax doorashaha guud aan la qaban doonin inta dagaalka Gaza uu si buuxda u dhamaanayo waxa la sheegay in labada musharax ee ugu cadcad ay kala yihiin Khalid Mish'al iyo madaxa siyaasadda Gaza ee Hamas Khalil al-Hayya farqiga ugu weyn ee labadan ku kala duwan yihiin ayaa waxay tahay al-Hayya wuxuu doonayaa in la sii wado iska caabinta halka Khalid Mish'al la sheegayo inuu doonayo wada xaajood iyo tanaasul siyaasadeed si meesha looga saaro joogitaanka Israa'iil ee Gaza halka Khalil al-Hayya isagoo ku adkeysanayo in dagaalka la sii wado ilaa iyo inta Israa'iil ay si buuxda uga baxayso marayka Gaza warbaahinta Sharq ayaa ku waramaysa in ay u badan tahay Khalil al-Hayya inuu ku guuleysto doorashada maadaama uu haysto taageerada hogaamiyaasha Hamas ee Gaza ku sugan daanta galbeed una ku jiro Zahir Jabrin doorashada ayaa waxa qabanaya golaha shuurada guud ee Hamas oo ka kooban ilaa iyo 50 xubnood oo matala saddexda qayb ee siyaasadda ee Hamas ee daanta galbeed iyo waliba kuwa qurba joogta ah iyo Gaza doorashadan ayaa waxa hore ay u dhacday 2021kii waxaana qorshuhu ahaa in doorashadu ay dhacdo horaanta sanadka 2025 balse dagaalka Gaza ayaa arintaasi dib u dhigay 2021kii ayaa Ismaaciil Haniya waxaa loo doortay hogaamiyaha Israa'iil ayaa ku dishay magaalada Tehran weerar ka dhacay 31kii bishii Juulaay 2024 waxaana bedelay Yahya Siwaar oo isna ku geeriyooday dagaal ba'an oo ciidamada Israa'iil kula galay magaalada Rafah ee koonfurta Mareykanka Gaza tan iyo xilligaasi waxaa si ku meel gaar ah hogaanka u hayay golaha shuurada ninka madaxda u ah Maxamed Ismaaciil Darwish waxaana xubna ka ahaa Khalid Mish'al, Khalil al-Hayya, Jabrin iyo waliba Nizar Awdala Sharq waxay sheegaysaa in go'aanka hadda lagu gudagalayo doorashada uu yahay markaasi midka ugu muhiimsan ee go'aanka lagu gaari doono hogaanka ururka sida wararkan ugu dambeeya haatan ay sheegayaan waxay qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamij ka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo